waxaan rabaa inaan kaa dabageeyo qoorqoor safarkiisi. shalay waxaan kuu sheegay, horta habeen hore waxaan kuu sheegay in qoorqoor uu ka degay dalka Jabuuti. shalay sawirada way soo baxeen, warka aanu sheegayna ilaahay run oo ka dhigay. maantana shalay waxaan ballan qaadnay inaan soo raadin doonno qoorqoor sababta uga degay dalka Jabuuti, inaan baarno, baaritaan aynu gelino haddaan nahay warbaahinta jaamacadda SMC. taasi waa ku soo guulaysanay, waanu baarnay. wixii ku soo kordhaana haddii ilaahay ina ogeysiiyo waa ku daraynaa, waa kuu sheegaa. marka ninka la yidhaahdo Saadiq John in uu xildhibaannimo raadsado mar kale, awalba xildhibaan uu ahaa, jagadii wuu dhigay, taliyaha ku-xigeenka sirdoonkuu noqday. Saadiq John in uu xildhibaannimada raadsado waxaa ka soo shaqeeyey qoorqoor, oo hadda ka hor farmaajo markuu isku taagay ninka la yidhaahdo Saadiq John shir kale ofishaale markuu yimaaday, ninka ka badbaadiyey farmaajo wuxuu ahaa qoorqoor oo galmudug geeyey, cimaamad u xiray, oo ma arkaysa macnihii dagaal al-shabaabaan kula jirnaa yidhi. sidaasaa lagu badbaadiyey. waay marka qoorqoor markuu xildhibaannimada raadsa uu yidhi uu kala shaqeeyey, wuxuu ku yidhi niyow xasan sheekh maxamuud nin la aamini kara maahan. waa ninkii hadda ka hor dhowr jeer idili gaaray. mahad salaadna ninka igu soo dhisaayo waa meeshaana waxaa weeye annaga xaaji saleebaan ah. waxaan arkaysaa hadda annagaa meeshaan haysannaa. waxaad yeelaysaa niyow ismaaciil cumar geele ila kulansii buu yidhi. niyow waxbaan ku ogahay. marka Saadiq John isagana islaantiisu hoosta ka galay, waayo gabadha ismaaciil cumar geeluu qabaa, haybada gabadha la yidhaahdo. haybada marka aabbaheeday u tagtay waxay ku tiri aabbow ma arkayse macnihii sidaasaan rabnaa, ma arkayse in qoorqoor iyo ma arkayse atbaacdiisii aad la kulantid, codsigaas anaa wata. okay, baasha marka way dhisan tahay. horta qoorqoor iyo xisbigiisi waaye arag haddii lagu dhaho waxaa weeye dhegdheer ah ka mid a, dhegaya ka mid a, kii murusada, kii duduble. xisbi waxaa jira waaye arag la yidhaahdo oo galmudug ka dhisanaa jira. farmaajo oo jira xataa nabad iyo nolol baa laga hoos dhisay, waaye arag taabacsan nabad iyo nolol u ahaa. marka Jabuuti bay ka degeen sidaad aragteen. ismaaciil cumar geele ayaa lala kulansiiyey. shaxda waxaa soo dhisay qoorqoor, laakiin waxaa fududeeyey Saadiq John. isii aan ku siiye. shaqada loo dhiibay marka maxay tahay? maxaa meesha u tegey? maadaama qoorta in laga goynaayo uu dareemay qoorqoor, xasan sheekh maxamuud seeftiisa bannaanka ay taallo, wuxuu qorshaystay marka inuu ka badbaado. sidee buu uga badbaadi karaa? Jabuuti waxay aad u danaynaysaa dekedda Hobyo iyo macdan ku jirta ama uranium, waxaa rabtid ugu yar galmudug uranium ay leedahay. hadda ka horna geella wuxuu damcay in uraniumta khayraadkaasi laga dhoofiyo dekedda Hobyo isaga uu la wareego, si Puntlandta daaroodka dekeddooda garacad loo hurudsiiyo, isla markaasna Iiraan macnihii meesha looga dhoofiyo uraniumta. warka aad u fahan. dhinaca kalena halkaasi lagala dagaalamo al-imaaraat al-carabiya, oo Jabuuti imaaraadku way ishayaan, oo ganaaxa dhex maray 500 milyan baa lagu ganaaxay maxkamad Ingiriis ku taala dekedda Doorale markii imaaraadka laga soo eriyey Jabuuti iyo DP World oo imaaraadka ah. marka shaxdu sidaasay u dhigan tahay. marka Turkiga soo dhex galay mar dhexdaas ah oo galmudugtii inuu la wareego. waatan ma arkaysa xaflad ay dhigteen qoliyahan habar gidirta ah Hobyo mar macnihii dekedda qof walba waxa ku darsada la dhahayay, la keenay Erdogan gabadhiisa ninka qaba oo hadda ka hor baraawana tegey. waa kan ma arkaysa xaflad ay u dhigeen.
ciyaarta marka meeshaas markay marayso leedahay wax yar ciyaarta meeshaas markay marayso qoorqoor wuxuu jaanis u arkay marka inuu kaga faa'iidaysto qorshihii geelo uu damacsanaa in dekadda hobyo uu la wareego in ma arkaysa macnihii uraniumtan ma arkaysa macnihii isaga dhoofinteeda uu gacanta ku dhigo tii isagoo daba jooga rabana in uu kaga badbaado xasan sheekh maxamuud qoorqoor ayuu marka sidaasi u tegey xisbigiisuu ka haystay waayo arag jilba culustii wixii oo dhan saadaq john wuxuu u maray dhankaas iyo gogosha yah sidii yaa lagula kulansiiyey ismaaciil cumar geelle ujeeddadana waxaa weeye dekadda hobyo iga qabso uraniumta iyo khayraadkaan galmudugna qabso adigu dhoofso aniguna ma arkayse macnihii yacni doorasho aan isku caana shubo inaan qabsadaan rabaa xasan sheekh maxamuud si aan uga badbaado adigaa kaaba inoo wada ah ciidamada jabuutiyaankana ma arkayse macnihii wada shaqayntooda waa soo dhowaynayaa welibana marka dekaddaasi ma arkayse macnihii la habaynaayo ciidan baa loo baahan yahay ciidanka jabuutiyaankana magacaasom iyagoo wata ma arkayse ha yimaadaano ciidamo kale oo ma arkayse jabuuti geelo uu dhistayna galmudug waa inaa ka samaysaa annagana ciidan baan kuu noqonaynaa haddaynu nahay beesha habar gidir cid kale waxba nagama gelin laakiin galmudug inaan anigu joogo macnihii madaxweyne aan ka ahaado aan isku caanashubo sidii axmed madoobe oo kale xasan sheekh maxamuud aad iga qabataa horta qoorqoor ba arkaysa sidaasuu u tegey cagsiga waxa la soo dhihi doono waa wax kale oo aan ku maqannahay ama shalay waxaan ballan qaadnay sababta qoorqoor uu u tegey jabuuti in aan xaqiiqadeeda soo baarno haddaan nahay jaamacadda s m c na waa soo baarnay adiga marka su'aalaan ku weydiinaa raxweynow qoorqoor iyo macnihii waxay ku fakadeen salay ku fakadeen hadda anigana marka inaan guursado waayo akh wallaahi bilaahi tallah naag madaxweyne ama naag ra'iisul wasaare xoogo inaan guursado waayo wallaahi gabadhiisi ya haba aragtaa laakiin fiiriya hadda macnihii guurkaasi hadhahadhada ah state inaa ku badbaaday laakiin annaga kuweeni ka waran taliya shub oo kale gabar sheekh cabdulqaadir qaadiriye qabtuu guursaday oo suufi ah iyadiiba wan iyo waxay soo doonatay ma arkayse macnihii madax ari iyo xoogoo calooleeya iyadaa baydhabo u soo doonatay annaga marka kuwa aan macnihii badbaadada u doonanay iyagiyaa jabuuti badbaado u doontay waxaa la dhihi jiray tuugsada lama tuugsadee taajirkaa loo tagaa fiiri annaga dhibkana qabsadaan kuu sheegaa innaga dhibaatadana qabsatay fiiri ah kuwii daaraha laga jajabinaayey ayaan macnihii badbaado u raadsanay waxayna na leeyihiin ruuxaan sheekh cabdulqaadir neef ari ay rabtaa baydhabay xoolo ka rabaan laakiin kuwa annaga aan badbaadada u doonanay oo guryaha ay degeen 91dii laga jajabinaayo iyagii badbaado waxay u raadsadeen jabuuti abow ismaaciilow innagiina iyagaan weli daba taagannahay war maxaa nagu dhacay sheega dee war waxaa nagu dhacay sheega horta hadda ma fahmaysaa ciyaalkana waxay dhihi jireen marka nacnac iyo xanjo la kala goosto tuugsade lama tuugsadee taajirkaa loo tagaa bay dhihi jireen marka nasiib darrada raxweyn ku dhacday meeshaasaa ka aragtaa horta safarka xasan ninka la yidhaahdo safarka macnihii geelle macnihii qoorqoor meeshaasuu tuuran yahay kaasi waa iga haysaa soo maan waay meel kale aan ku aadina haddana
waa qosley wallahi